Maxaa kala socotaa gabadha kaliya ee ku jiri jirtay guddigii afka Soomaaliga ee golihii sare ee kacaanka? Sanadkii 1920kii ayay ahayd markii la bilaabay hindisaha qorista rasmiga ah ee afka Soomaaliga. Ilaa xilligaasina waxaa lagu taamayay in si rasmi ah loo qoro. Cismaan Yuusuf Kendiid oo ka mid ahaa dadkii xukumayay beelaha Soomaaliyeed qaarkood, fadhigiisuna ahaa magaalada Hobyo, ayaa waxa uu soo saaray far lagu magacaabi jiray Cusmaaniye sanadkii 1922. Fartaasi meelo kooban ayay ka shaqeynaysay, mana ahayn mid dalka ku wada baahday. Sanadkii 1950kii ilaa 1960kii waxaa socday dood ah sidee loo qori lahaa afka Soomaaliga. Rag badan ayaa dadaal sameeyay, waxaa lagu muransanaa ma Soomaali mase Laatiin. Ragga dadaalkaasi sameeyay waxaa ka mid ahaa Ibraahim Xaashi Maxamuud iyo Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Dhammaan raggaasi waxay soo saareen qoraallo farta ah intii u dhaxaysay sanadkii 1950kii ilaa 1961. July 1 sanadkii 1960kii markii dalku xorriyadu qaatay, waxaa la soo bandhigay dhowr qoraal, waxaana ka mid ahaa farta Shiro Jaamac Axmed oo Laatiin ahayd iyo faro kale. Tanina waxay ka dambeysay kadib markii dowladdii xilligaasi jirtay ee madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan ay saartay guddi ka soo baaraan dega qoraalka farta Soomaaliga. Guddigaasi waxaa xubno ka ahaa dadkan kale ah: Yuusuf Xaaji Ismaaciil Galaal, Yaasiin Cusmaan Yuusuf, Maxamuud Saalax Ladane, Ibraahim Xaashi Maxamuud, Khaliif Suudi, Mustaf Sheekh Xasan, Shiro Jaamac Axmed, Xuseen Sheekh Axmed Kadare, Yuusuf Meegaag Samatar. Guddigaasi howshoodu waxa uu ka socon waayay isqabqabsi dhexdooda ah, maadaama rag iyagu ka mid ah ay doonayeen in fartii ay soo hindiseen la qaato, sida Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo isagu soo saaray far ku qoran alifbeetaha Carabiga ah sanadkii 1951. Waxaa kaloo guddiga xubin ka ahaa Xuseen Sheekh Yuusuf Kadare oo far uu sanadkii 1952 soo saaray. Waxay guddiga ku taliyeen in farta Laatiinka la qaato, taasi oo soo hindisay Shiro Jaamac Axmed sanadkii 1961. Si kastaba ha ahaatee, dowladdii Soomaaliya ayaa keensatay khubaro ka socday UNESCO si arrintani wax uga qabtaan. Taasina ma dhicin, mana laga miro dhalin, oo weli waxaa socday isqabqabsigaasi. Markii ay soo ifbaxeen in farta Soomaaliga Laatiin lagu qorayo, waxaa mudaharaadyo ka dhaceen Soomaaliya oo lagaga soo horjeedo in lagu qoro Laatiinka, waxaana dadka laga dhaadhiciyay inay ka soo horjeestaan in lagu qoro Laatiin. Taasi oo masaajidada laga iclaamiyay in shacabku ka soo horjeestaan, waayo ayay yiraahdeen Laatiin waa la diin oo micnaheedu tahay farta Laatiinka waa diin la'aan, iyada oo loo tirinayo in farta Laatiinku tahay tan wadamada Islaamka aan ahayn ay wax ku qoraan. Oktoobar 21keedii 1969kii markii uu dalku la wareegay madaxweyne Jaale Maxamed Siyaad Bare, waxaa dib loo nooleeyay fikirkii qoraalka farta Soomaaliga. 21kii January sanadkii 1971 waxaa la dhisay guddiga afka Soomaaliga. Guddigani waxa uu ka koobnaa 21 xeeldheerayaal afafka ah iyo 2 la taliye. Xubnaha guddiga waxa ay kala ahaayeen Shariif Saalax Maxamed Cali Gudoomiye, Yaasiin Cismaan Kendiid, Mustaf Sheekh Xasan, Axmed Cali Abukar, Yuusuf Xirsi Axmed, Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal, Cabdidaahir Afey, Aw Jaamac Cumar Ciise, Dahabo Faarax Xasan, Cabdulaahi Xaaji Abukar, Cabdulaahi Ardeeye, Xasan Sheekh Muumin, Maxamed Nuur Caalin, Maxamed Xasan Aadan Gaheer, Xirsi Magan Ciise, Cumar Ow Nuux, Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniye, Abakar Banaana Xadaad, Caaqib Cabdulaahi, Xuseen Sheekh Axmed Kadare, Axmed Cartan, Maxamed Xaaji Xuseen Sheeke Xariir, Cabdiraxmaan Nuur Xirsi, Shiro Jaamac. Guddiga waxa uu lahaa guddi
hoosaadyo sida mid qaabilsan qorista qaamuuska, tan taariikhda, juqraafiga, sayniska, diyaarinta kutubta dugsiyada iyo naxwaha. Guddiga Afka Soomaaliga ayaa farta Roomaanka ama Laatiinka in lagu qoro afka Soomaaliga, maadaama makiinadihii xafiisyada yaalay ee teebka ay ku qornaayeen fartaasi Laatiinka. Muddo 22 bilood gudahooda waxaa lagu diyaariyay buugaagta dugsiga dhexe, xarfaha Hingaada afka Soomaaliga oo ka kooban 5 shaqal iyo 21 shibane. Si ka duwan sidii 1961dii, ma dhicin wax mudaharaadyo ah